waxaa maanta xarunta dowladda hoose degmada Boorama ka qabsoontay munaasabad ballaaran oo ay xilka kula kala wareegayeen maamulkii hore ee degmada Boorama iyo waliba maamulka cusub. waxaana munaasabadan goobjoog ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland, wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta Somaliland, xildhibaanadii hore ee golaha deegaanka degmada Boorama, barasaabka gobolka Awdal iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Camuud. ugu horeyn waxaa munaasabadan xil wareejinta ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro iyo gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Suleymaan Axmed Guuleed waxayna yiraahdeen aynu maanta u fadhinaa waa munaasabadii xil wareejintii labada gole ee ay kala hogaaminayeen labada maayar. qoodii horena waxaynu leenahay sababtus wanaagsan, qoodad kalena waa soo dhaweynaynaa. labada qolna waa u ducaynaynaayo ninka ka baxayna Ilaahay inuu khayr badan la kulmiyo loogu sii duceeyaa, ka ugu soo socdana Ilaahay isaga ku barakeeyo loogu duceeyo. labadaba way u ducaynaynaa. dadku wax badan buu idinka filanaya, rajo badan buu idinka qabaa, aad baa la idin xiisaynayaa. laakiin dawaa la idin arki doonaa. maalintii dhaweydii 16 Juun professorku wuxuu yidhi war bal sanadka bisheeda juunteeda waa la idin xisaabtamayaa, inta ka horreysay si hagaajiya. waxa la idinka filanaya waa wanaag, xumaan idinka filan mayso. waxa la idinka filanaya waa horumar, waxa la idinka filanaya waa qurux, waxa la idinka filanaya waa inaad bilicda magaalada inuu hagaajisaan. waxa la idinka filanaya inaad magaalada ka dhigtaan magaalo ismahayna qolooyinka kale Hargeysa la tartantay inay ka dhigtaan baa idinka rabaa. dadka waxa ugu khayr badan ka dadka u shaqeeya, khayrun naas anfa'uhum lin-naas, ka ugu faa'iido badan ayuunba ugu khayr badan. dad baynu wada shaqeynaa, Ilaahay bayna xisaabin, iyaguna wayna xisaabin oo waynu ag joognaa. ragga cusub waxaan loo dardaarayn tani waa dawladdii hoose oo waa local governmentkii inta la doortayba dalkayna la joogeen oo magaaladana joogeen oo gobolkana joogeen. marka amshur way og yihiin waxa dhiman iyo waxa qabsoomay labadaba. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maayarkii hore ee magaalada Boorama Suleymaan Xasan Xaddi iyo waliba maayarka cusub Maxamed Axmed Warsame, waxaana hadaladoodii kamid ahaa maanta waxa weeyaan ilaa 15 laami ayaanu magaalada ka samaynay. waxa la doonayaa lama oran karo laamiyadaan samaynay oo wada sidoodii ribeerin ba u baahan yihiin in la dayactiro. wixii cusubad ku dari karaysaan inaad ku dartaan. wixii baahida magaaladu ay tahay miisaaniyadii iyo qorshihii loogu talagalay golaha maanta xilka kala wareegaysaan baa iyo ansixiyay uu qorshaysan yahay. lacagta loogu talagalayna way taalaa. weegana waxa la bilaabaya LDF-kii mashaariicda horumarinta degmada. kursigu marka loo soo socdo uu fiican yahay, marka lagu fadhiisto culays badan buu leeyahay. xaqiiqan idin sheegaya Maxamed baa jooga oo walaalkaya oon isleeyahay war hala garab istaago. sida aad maanta u soo wada garab yaacdeen waa inaad horumarka iyo talada wanaagsan aad ula socotaan. wixii hore uu tagay waxaan leenahay waxaad fashaba in faatakum qoladiinii hore. qoladayada cusubna waxa la rajaynayaa horumarinta degmada inaynu ka shaqeyno. waxa la inoo toortay degmada Boorama hadii la hayda waxaynu ka shaqeyn doonaa sidii aynu kor ugu qaadi lahayn dhaqaalaha, bilicda magaalada, baahiyaha aasaasiga ah oo ka mid tahay waxbarashada, biyaha, caafimaadka. Abshakuur Maxmed Ali 5TV Boorama.